wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Faarax Cadare taliyaha laanta damdamiska jamhuuriyadda Somaliland Master Sawaaxili xubno kamid ah maamulka degmada Togwajaale iyo waxgaradka degmada Togwajaale la taliyaasha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha iyo xubno kale ayaa ka qayb galay furitaanka damdamiska qaybta gargaarka damdamiska degdega ah laga hirgeliyay degmadaasi Togwajaale halkaas oo ugu horeyn hadallo kooban ka jeediyeen xubno ka socday xukuumadda Somaliland oo warkacay wasiirka cadaaladda oo ka warramay baahida reer Wajaale u qabeen qaybahaasi damdamiska taliyaha ciidamada damdamiska Somaliland gaashaanle sare Sawaaxili oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa ka warramay ujeedada iyo aasaaska ciidanka damdamiska ee degmadaasi Togwajaale sidoo kalena maayirka degmadaasi Togwajaale mudane Aadan Muuse Cilmi Adashiine oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in guud ahaanba maanta ka raysan doonaan in reer Wajaale dabkaasi inta badan ay ka cawdaan maadaama loo sameeyay ayuu yiri ciidan dhisan iyo waliba tababar iyo aqoonba u leh sida looga hortago masiibada dabka oo farabaas ku haysay ganacsatada reer Wajaale garadka iyo dadweynaha aad u tiro badan ayaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay sharaf leh ayaynu maanta bartaan u taaganahay ilaahayna inaga jisaasin doono waa dabdamiskii qaranka oo laga dhisay degmada Togwajaale ahna magaalada ganacsiyeedkii oo baahi aad u badan u qabtay run ahaantii in loo keeno dabdamis casri ah iyo shaqaale u tababaran aan hore ballan u qaaday inaan degmadan u imid inaan hormariyo tii baanan maanta ku taaganahay waxa ogeedeen inaan ballan qaaday markii oo dhalinyarada iyo odayaasha degmada Togwajaale iga codsadeen in wadada 2 kiiloomitir ah la dhameystiro hamiyadii kale aan lahaa maanta waxa ahayd inaan degmada Togwajaale aan keeno dabdamis ilaahay baa mahadale maanta dabdamiskii baynu dhagax taaganay kii degmada Wajaale waxa maanta si rasmi ah loo binaynayaa shacbiga weyn ee ku nool degmada Wajaale dabdamiskaasi oo baahi weyn u qabeen ayaa maanta loo dhagax dhigayaa farxad weyn bay noo tahay guul bay noo tahay runtii maanta waxa farxad inoo ah inaynu dhagax dhigayno xaruntii dabdamiska oo ah xaruntii saddexaad ma jecelay ee laga dhagax dhigo jamhuuriyadda Somaliland gobolkii saddexaad ee nasiibka u helay in laga dhagax dhigo ama laga dhiso xarun dabdamis waan soo dhaweynaynaa waxqabadka faa'iidooyinka uu leeyahay marka koowaad Wajaale waa xarumaha ugu waaweyn ee ganacsiga ee dalkeena kama maaranto inay yeelato xarun dabdamis oo casri ah oo dadka reer Wajaale faa'iido u noqon doonta inay soo aaminaan ganacsato waaweyn maadaama ay leedahay Wajaale dabdamis casri ah oo ay ku soo aaminaan adduunkooda si ay maaragtay iibgeeyaan wadamada Itoobiya iyo Sharqi waxaan si gaar ah ula hadlaynaa reer Wajaale oo runtii uu u yimid gurmad kii saddexaad ee badbaadada hantida iyo bulshada reer Somaliland ee laga hirgelinayo gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinkiisaba oo ah xarunta dabdamiska qaranka waa xarun muhiim ah qof run ahaantii anagu si voluntary ah oo ayaan ula shaqeynaa u garab taaganay meel ay marayaanba garab taagtaan baa loo baahan yahay gudoomiyaha degmada Wajaale waxaan hubaa oon arkayay ilaa iyo maalintii inuu har iyo habeen soo jeeday sidii xaruntaas halka uga dhismi lahayd inaad garab taagtaan buu idinka filayaa inaad caqabad ku noqotaan looma baahna waxaan la hadlayaa odayada muska galay ee maanta aan noo muuqana anigoo saldaana waxaan leeyahay waar ka soo baxa qaranka waa la wada dhistaa cidi gooni uma leh haddii la leeyahay qaran ma nihinna ha soo cadaada ninka leh oo aniga ha yimaado si dawladda nimika jirtay waxqabadka ku tashatay markii hore waxaan ku talagalnay inaan dabdamiska Hargeysa bilowno tii ilaahay uu noo guuleysiyay dawladuna garban u nasiisay stepkayga saddexaad wuxuu ahaa inaan gobolada oo dhan gaarsiino marka imika Hargeysa Burco iyo Wajaale Boorama waa u sameeynaa Laascaanood oo sameeynaa Ceelgaabana oo sameeynaa aad iyo aad baan u taageersanahay labada nin dhalinyarada idin madaxda maanta barasaabka gobolka iyo gudoomiyaha degmada waxaan saas u oranayaa sidee noo garab joogaan iyo weydiisadkooda iyo had iyo jeer noo sameeyadii gudoomiyaasha waxaan leeyahay
dabdamiska mar haddaan anagu aanu dhisno shaqada badan idinka soo dhacaysa sida meeyarka Hargeysaba uu gacanta ugu hayo bacmisharka waxaan leeyahay dabdamisku bacmisharku ilaaliya iyo dadweynuhu ilaaliya idinku hadda gacan siin weydaan madaxda gobolka ee socon bayso inta uu kaasi maqan yahay ayaan sidii hadaba gobolkii maxaa uu dabdamisa gaari baan idin keenay markaa Hargeysa lagu yeedhnay namadii 15 nin baan kala baxnay imka 15 nin baa tababar ku jira namada imika tababar ku jira wareer wajaale CV-da halkaan ku qaban anagu gabagabadiina halkaasi waxa aad la kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan si gaar ah uga mahadnaqayaa wasiirkii maanta furi lahaa oo maalgelisay oo aan sii matalayo wasiir Samsam waxaad leedahay waad ku mahadsan tahay in wajaale loo hiiliyay waayo lagama jecel dadka waxay tahay wacdi dhaqaalaha ummadda qaranka waxay markaa kala maarmaana in loo badbaadiyo qaranka hantidiisa saasa loo siiyay laakiin waxaan dareemayaa in guddiga horumarinta ee degmadu ay ka maqnaa meesha waxaan dareemayaa soo Suudaanku sheegay inay madaxdhaqay ka maqan yihiin waxaan dareemayaa in wasiirada gobolka soo jeeday anigu ka mid ahay aan dareemayna maqan yihiin waxaan arkayaa markaan xooraamiyay aan degadegaynta joogay kurgalay inay wax ka siiyeen wajaale khaldan saxa toosiya ubaxa soo kacaya ee shaqada loo abuurayo ee sida khaldan u socda wax ka qabta hay ku eegina qaranka inay ubadka fariina ka baxeen baa ka muuqata inay balaayo drugs ku badaxeen baa ka muuqata arrinka waa inuu soo jeesano diyaar baan leeyahay arrinkaasi arrin la dhaysan kara maaha waan wax ka qabanaa nasiib u yeelateen waxa weeyaan nimanka tababaran ee heegankayda ah soo dhaweeya inada tababaran intay soo dhamaysanayaan in kalena waa loo tababari doonaa qaranka ma kala laha degmo ee shaqaaluhu waa loo siman yahay iska lahaa ee xaq ku yeelan lahaa haddii mid garab lagu siiyo ku baayo cadaalad noqon mayso ilaahay cadaalad ahayna waafajiyo inaguna kuwii xaq gartay horumarka ay noqono waa Nimcaan Dheeg Ibrahim TV-ga qaranka Gabiley.